السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaad warbixin gaar ah oo aan diradda ku saarayno 48 saac ugu dambeysay dhaqaaqadii socday ee lagu raadinayay heshiis xabad joojin oo ka dhaca marinka Gaza. Sida ay warbixinadu muujinayaan, mar kasta oo hore waxaa ka dhow waqtigan in heshiis xabad joojin uu ka dhaco marinka Gaza. Intaan ku jirno warbixintan ayaadna heli doontaa dhacdooyinka ugu dambeeyay 48 saac iyo habka la doonayo in heshiiskan uu noqdo iyo dhinacyada Israa'iil iyo Xamaasba sida heshiiskan diyaar hadda ugu yihiin. Intaan warbixinta guda galin, fadlan ku soo biir bartan YouTube ee Imaan Jaamac oo ku siin doonta maalin walba macluumaadka ugu dambeeya caalamka gees ilaa gees. Saaxiibada la wadaag, sidoo kalena inaad like iyo share ba siisid waxay qayb ka qaadanaysaa koritaanka bartan. mar kale soo dhawaada. Wafti ka socda ururka Xamaas oo hogaaminaya Khaliil Al-Haya, mid ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ee dhinaca siyaasadda ee ururka Xamaas, ayaa xalay ka dhoofay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar kadib markii uu kulamo la yeeshay madaxa sirdoonka guud ee Masar Saraayagas Xasan Rashad oo ay ka wada hadleen baaliyay dadaalada xabad joojinta ee marinka Gaza. halka ila siyaasadeed oo Israa'iilna ay sheegeen inay Tel Aviv iyo dhaqaaqa Xamaasba ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis. Xamaas ayaa war ka soo baxay waxa lagu sheegay in waftiga hoggaanka Xamaas ee hogaaminayay Khaliil Al-Haya ay ka bixeen caasimadda Masar ee Qaahira xalay oo xaday baxaysay kadib markii ay shalay oo xad ahayd wada hadallo la yeesheen taliyaha sirdoonka guud ee Masar. kulankaas oo laga wada hadlay xabad joojinta dadaalada marinka Gaza iyo guddiga taageerada bulshada ee marinka Gaza. waftiga waxa ay ku nuuxnuuxsadeen sida ay u jeclayeen inay dadaaladaasi guuleystaan oo la joojiyo xasuuqa gardarada iyo duulaanka Israa'iil ee ka wada marinka Gaza. waftiga ka socda Xamaas oo hogaaminayay hogaamiyaha caanka Khaliil Al-Haya ayaa Sabtidii gaaray Qaahira, markaas oo ay la kulmeen madaxa sirdoonka sidoo qoray wargeyska Israa'iil ee Yacdad Ahranos. wargeyska waxa uu sheegay shalay waxaad ahayd in Masaridu ay isku dayeen inay hormariyaan dib u heshiisiin dhexmarta Xamaas iyo ururka Fatah ee daanta galbeed ku sugan, isla markaana ay riixaan sidii loo dhamayn lahaa baaliyay heshiis lagu soo celinayo maxaabiista. warbixintu waxay intaa ku dartay in ay Xamaas diyaar u tahay inay aqbasho heshiis tartiiba oo loola jeedo inuu noqon doono heshiis wajiyo kala duwan yeelan doona ama heerar kala duwan. heshiiskaas wuxuu la mid noqon doonaa baaliyay sida kan Israa'iil ay la gashay Xisbullah iyo Lubnaanba. dhinaca kale, ilwaradii siyaasadeed oo Israa'iil ka tirsan ayaa sheegay in fiidnimada xaddii in Israa'iil iyo ururka Xamaasba ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis yar, sida ay sheegtay hay'adda warbaahinta Israa'iil, halka Xamaas iyo wadamada dhexdhexaadiyaasha ee Masar iyo Qatar midkoodna uusan weli ka falcelin hadalkaas. warbaahinta iyadoo soo xiganaysa ilwaradiyo aan la magacaabin waxay sheegtay in labada dhinac ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis yar oo ay ku jirto xabad joojin muddo 2 bilood ah, waxaana sidoo kale jiri doona baaliyay sii deynta labada dhinac ee maxaabiista bini'aadanimada ee dagaalka oo ay ku jiraan waayeelka, haweenka, kuwa dhaawaca qaba iyo kuwa xanuunsan, iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ay qaybo ka mid ah marinka Gaza. warbaahinta dadweynaha Israa'iil oo loola jeedo warbaahinta gaarka ah ee afka maamulka Israa'iil ku hadasha ayaa sidoo kale waxa ay ku warantay in Xamaas ku wareejisay dhexdhexaadiyaasha liiska maxaabiista la filayo in lagu daro heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee Israa'iil iyo Xamaas oo ay ku jiraan balay 4 muwaadin oo Mareykan ah oo ay Xamaas qorsheynayso inay sii deyso wajiga koobaad ee heshiiska. tan oo uu sheegay in lagu gol xaarayo qorshaha ay Xamaas doonayso in uu Mareykanka iyo maamulka cusub ee hadda Mareykanka la wareegay Donald Trump ay dardar geliyaan soo afjaridda dagaalka marinka Gaza. horaantii shalay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu ku andacooday khudbad uu u jeedinayay qoysaska maxaabiista Israa'iil ee Gaza lagu haysto in dhicitaanka nidaamka Bashar al-Assad ee Syria ay gacan ka geysan karto uu yiri soo afjaridda heshiiska maxaabiista ee marinka Gaza. sidoo kale isla shalay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog wuxuu yiri waxaa jira wada xaajoodyo ka socda daaha gadaashiisa si maxaabiista looga soo celiyo marinka Gaza. koodii bishii December, wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar wuxuu isna sheegay ama uu xaqiijiyay hadal uu ka jeedinayay madal ay soo qabanqaabisay shabakadda wararka Israa'iil ee Israel Today inay jiraan calaamado muujinaya horumar laga gaaray heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee Xamaas iyo Israa'iil. wada xaajoodada Xamaas iyo Israa'iil ayaa burburayay muddooyinkii ugu dambeeyay, isku day kasta iyo soo jeedin kasta oo la soo bandhigana waxay ahayd mid aan la hirgelin sabab la xiriirta ku adkaysiga Netanyahu ee ah inuu sii joogo ama ciidamada Israa'iil inay sii joogaan ayna xakameeyaan soodinta isgoyska Philadelphia ee u dhaxeeya Gaza iyo Masar, iyo ka hortaga soo noqoshada dadka reer Gaza ee inay ku soo laabtaan guryahooda ku yaala waqooyiga marinka Gaza, halkaas oo bilooyinka ugu dambeeyay Israa'iil si weyn u go'doomisay. halka Xamaasna ay ku adkaysanaysa in Israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka Gaza iyo in gabi ahaanba la joojiyo dagaalka si ay u aqbasho heshiis kasta. Israa'iil ayaa ku qiyaasisay in 100 maxbuus ay weli ku xiran yihiin marinka Gaza, halka Xamaas ay shaacisay in 10 maxbuus lagu dilay weeraro aan kala sooc lahayn oo Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza. iyadoo Israa'iil ay taageero ka helayso Mareykanka, waxay Israa'iil qasa ka waday xasuuqtan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii hore 2023 in ka badan 150
kun oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday laguna dhaawacay, kuwaas oo u badan carruur iyo haween. In ka badan 11 kun oo kalena waa la laayahay, iyadoo ay jirto burbur iyo macluul aad u ba'an oo ay ku dhinteen daraasiin carruur ah iyo dadka da'da oo ku jira mid ka mid ah masiibooyinka bini'aadanimo ee ugu xumeeya adduunka. Marinka Ghaza waxaa si dhaqso ah loogu aqoonsaday goobta ugu adag ee qof bini'aadan ah uu ku noolaan karo. Hadduu ay bidmo waxyaabaa ka soo kordha filashada laga qabo heshiis dhici kara ama in heshiis ay wada gaaraan Israel iyo Hamas muddo dheer oo wadaxaajoodiyadii isku dayada dhan ay burbureen. waxaad heli doontaan isla xilligay soo baxan. Balse dhawaan waxaa la arkay dowladda Qatar oo ahayd dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee Israel iyo Hamas inay joojisay sabab la xiriirta kadib markii ay sarab mareen diidmooyinka labada dhinac. dowladda Qatar markaas waxay bil ka hor ku dhawaaqday inay ka baxday dhexdhexaadintii Israel iyo Hamas ay ka dhaxwaday sabab la xiriirta in labada dhinac aysan diyaar u ahayn heshiis dhaqso leh oo ay gaaraan. markaas shuruud waxay uga dhigtay dowladda Qatar in ay ku soo laaban karto doorkeeda dhexdhexaadinta ballaaran haddii ay aragto danayn ama in si dhab ah ay labada dhinac heshiis doonayaan. mar kale ayay dowladda Qatar hadda soo laabatay iyadoo daqiiqadii toddobaadka hore si rasmi ah loo xaqiijiyay dowladda Qatar inay hadda doorkeedii ballaarnaa ee dhexdhexaadinta heshiis xabad joojin oo ka dhaca Marinka Ghaza inay dib u soo celisay. taasi waxay ahayd wax ku filan ama tilmaam ku filan inuu dhow yahay ama ay suuragal tahayba labada dhinac in heshiis ka dhow yahay. maamulka la doortay ee Mareykanka ee uu hogaaminaya Donald Trump ayaa loo arkaa cidda ku riixi karta Israel oo mar walba uu Netanyahu burburinaya nooc kastoo heshiis la galo in si rasmi ah heshiis loo galo. dhawaan wuxuu qoraal u baahiyay uu ku sheegay in loo baahan yahay in korintus xilka la wareegin in la sii daayo maxaabiista labada dhinac. horay intuu ololaha ku jirana wuxuu sheegayay in uu dagaalada joojin karo oo dagaalka Ghaza uu kamid yahay. walow halka calaamad su'aal ay ka taagan tahay sabab la xiriirta in maamulka Israel ee Netanyahu hogaaminaya aysan doonin si dhaqso leh in loo soo afjiro dagaalka Marinka Ghaza. hadda warbixintan oo warbaahinta Israel iyo telefishinka Al Jazeera uu baahiyay waxay ka dhigan tahay talaabooyinka ugu horeeyay oo labada dhinac ay qaadayaan oo la xiriira sidii heshiis loo gaari lahaa. dhinaca kale waxaa jira dadaal kale oo dowladda Masar ay waday kadib markii la soo keenay hoggaanka labada urur ee Falastiiniyiinta ee Hamas iyo Fatah si loo dhiso guddi isku dhaf ah oo wada jir ah kuwaas oo howlgal bini'aadanimo ka fulinaya gudaha Marinka Ghaza. guddigan waxaa lagu magacaabaa guddiga taageerada bulshada Marinka Ghaza. shaqadooda waxay ku kooban tahay sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen dhammaystiran Marinka Ghaza, talaabooyin lagu joojinayo musiibada ka dhacaysa Marinka Ghaza la qaado. taas waxaa dheer guddigu wuxuu maamuli doonaa isgoyska Rafah, sidoo kalena guddigu wuxuu u qareemi doonaa sidii dib u dhis loogu heli lahaa Marinka Ghaza oo ku burburay duqeymaha aanan kala sooc lahayn ee Israel muddada 14 bilood ku dhow ay ka geysanayso Marinka Ghaza. Marinka Ghazana sidaad warbixinta ku maqasheenba waa halka ugu adag ee qof aadanaha uu maanta kaga noolaan karo meerahan dhulka ay bini'aadanku ku nool yihiin. duqeymaha Israel way sii socdaan oo maalin walba waxaa dhacaya duqeymo xasuuq ah oo lagu dilayo tobanaan dad rayid oo haween iyo carruur badan. waxayna Israel beegsanaysaa goob kasta oo dadka rayidka ay ku nool yihiin, sidoo kalena waxay bartilmaameedsanaysaa goobaha ay dadku u tagayaan ka helaan wax gargaar ah. sidoo kale Israel ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay ama 3 bilood ee ugu dambeysay waxa ay ciidankeeda dhan dul dhigtay waqooyiga Marinka Ghaza, halkaas oo ay Israel ka joojisay inay galaan wax gargaara. warbixinteeni iyo wararkii degdeg ah hadda soo shacbaxay saacadihii ugu dambeeyay la xiriiray heshiiska ay gaari karaan Israel iyo Hamas ayaa intaasi noogu eg. ugu dambeyntii waxaan kaaga tagayaa in bal aragtidaada aad ku cabirtid suurtagalnimada heshiis dhici kara. maxayse ka dhigan tahay hadda inay Hamas ogolaatay heshiis la mid ah midka Hezbollah oo ay si yar ay ciidamada Israel uga baxaan Marinka Ghaza, xabjoojintuna ay noqoto mid dib loo soo cusboonaysiiyo. Israel waxaan aragnay inay ka baxday heshiiskii Hezbollah ay xilliga rabtay ay garaacdo gudaha Lebanon, laakiin Hezbollah ayaa waxaa xabada joojisay adigoo ku cabiraya ama ka cabir qaadanaya inay Marinka Ghaza tahay meesha qof bini'aadan ugu adag ku noolaan karo, taasoo la macnaa dadka reer Falastiin inay ku sugan yihiin xaalad aan la sawiri karin. mar kale intaynu kulmayno waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.